انتبه يا عباد الله، انتبه يا عباد الله، انتبهوا يا عباد الله. قانو محرم بشا محرم waxaa la doonayaa inaynu ka faa'iideysano fursado badan baa nabiga calayhi salaatu wasalaam noogu sheegay bisha ayadaan ku jirno fursada markaaynu ka faa'iideysano waxa kamid ah fursadaha la doonayo in ka faa'iideysano bishan muharram aynu ku jirno in la badiyo soomka la imaanayo soomka la soomayo bishan aynu ku jirno muharram yiraahdo in la badiyo laga marmaan weey waxa nabiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay xadiis Abu Hurayra warinayo oo Imam Muslim soo saarayo waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam afdalu siyami ba'da ramadaan shahrullahi almuharram soom la soomo oo fadli badan iska leh ramadaanka marka laga reebo waxa weeye bishan loo yaqaan muharram waxa soonka la yimaado nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay soonkan u fiican oo la yimaada marka ramadaan laga reebo waxa weeyaan bishan loo yaqaan muharram soomka la yimaado oo fiirsada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu iska keenay bishii ramadaanka iyo bisha aynu ku jirno maanta oo muharram loo yaqaan khayrka la imaanayo markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri afdalu siyami ba'da ramadaan soon la sooma kan u fadli badan ramadaanka ka gadaal ramadaanka ma hay bilaha kale soon la sooma waxa u fadli badan شهر الله المحرم بلش الله سبحانه وتعالى محرم لو يقانه والله فرصة النبي عليه الصلاة والسلام وحي شهر الله محرم ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بلها دمان توت يعني وحول بالله سجس كله لكن بيش والله تيري شهر الله محرم بيش الله سبحانه وتعالى محرم لو يقانه وحلو يري بالله يري الله إضافية الله سبحانه وتعالى وحوي إضافة تعظيم سيدا وحوي ناقة الله وسقيها وكله هالشيء إلهي ومع ذلك الله وحكى ساقس كله لكن تو waxa weeye weynaan la weynaanayo weeyaan bishaan weynaanta ay leedahay awgeed ayaa Allah subhanahu wa ta'ala loo tiriyay marka in soonka la badiyo weeyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam bilaha kale dhamaanto soonka la yimaado waxa ka fadli badan bisha muharram soonka la yimaado marka laga reebo bisha ramadaanka marka in ku dadaalno weeyaan in lagu dadaalo oo la yimaado ayaa mataqaana weeyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam fi hadiis ibn Abbas markuu Madiina Munawwara yimid ayuu wuxuu arkay يهودي ماشي جوكتو الصومن يعني مارك يعني سيدا صحيح أنا نبي مركو ما كتشوجي حتى يوم عاشوراء وكهر ري صون كفرت كوسيس سوم جري مركز يري ما حي السومايان مركز وحي رادين وحلو شيء يهود يوم عاشوراء وحي السومايان ويوم نجى الله موسى يعني وملك إلهي بني إسرائيل وكبد باديي نبي موسى بنو إسرائيل فرعون وكبد بادية عن مارك ساس درادد بالشكر أي إلهي كو شكرنا يعني السوما يعني مارك نبي عليه الصلاة والسلام مركب محو كيري فأنا أحق بموسى منكم فسامه وأمر بصيامه النجا النبي موسى إذن كجا حق بدن دينت النبي موسى النجا كتاجن يعني إذن كوحا وأهل الكتاب ذاتي وحبا كبد الشين يعني وواحد ترادن عزير ابن الله باترادن وعيسى ابن الله باترادن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يعني انت اساس ترادن لكن انغ waxa way tawxiidki annaga in kaga xaq badan markaas uu nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam wa in la soomaa yani maaragt wa amara bi siyami dadkeena wuxuu amray in la soomo yani maaragt yani bidaayatul islaam laga yaabo inay yoom ashura amar ahayd yani maaragt laakiin ramadaanka markii ilaahay farad yeelay ayaa maaragtay qofkii khiyaar la siiyaan marka يوم عاشوراء مركت ومالنت التمناد بشان كجر أو محرمة وحي لهذا التاريخ داس وإلهي مركو فرعون هلاقي والنبي الله موسى بدبادية يرير بني إسرائيل ظلمي يقرد الردي اللي وهي إلهي سبحانه وتعالى وكبد بادي ساسا وحي لوبا قفك مرك إلهي نعمة وسيو ربي إنه كشكر يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة إلهي مكوبي كرو برواقذا مكوبي كرو وحكم بذا نعمة الإسلام هذا يجر إلهي سبحانه وتعالى وإن أمه النقراني يعني مارتي وإلهي أنكو شكرنا يعني انتبه يا عباد الله، انتبه يا عباد الله، انتبهوا يا عباد الله. بالشني وحاجر عبادات سيقوني وحرا والله باي إن أنكو برارجنا وعن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يري أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صون للصوم رمضان كذب مركي رمضان لقي ماده
soon la soomo waxaa ugu fadli badan soonka bisha muxaram bishan soonkeeda ugu fadli badan taasi waxay tilmaamaysaa ciddii kari karta inay bisha badankeed soomto intuu awoodi karo ruux inuu bisha ka soomo taasi fadiiladaasay tilmaamaysaa waxaa iyadu si gooniya mudnaan u leh laba maalmood oo maalinka bishu 9 tahay iyo maalinka ay 10 tahay maalinka ay 10 tahay waa yawmu caashuuraa nabigeenna ka hor salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaan la soo saarin jaahiliyadii carabtu way soomi jireen nabiguna sal alla alay wasallam magaalada madiina markuu yimid isagoo soo hijrooday wuxuu u yimid qoysaskii yahuudda ee magaalada madiina deganaa oo soomaya maalinkaas markaasuu weydiiyey maxaad u soomaysaan waxay yidhaahdeen waa maalinkii ilaahay nebi muuse badbaadiyey fircawnna halaagay saas daraaddeed baan u soomaynaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam nebi muuse annagaa idinka xigna annagaana idinka xaq leh waa soomay nebigu soonkeedana waa amray ummadda isaguna waa soomay ummaddiisana waa amray nebigu sal alla alay wasalam maalinkaa in la soomo انتبه يا عباد الله انتبه يا عباد الله نبينا وحده عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله مالن كان بش محرم طبعا كتهاي صوم كيس مركز صوم إلهي وحن كجدونية إنه يقص عف الذنوب تي سنة كالعذاب ودم انتبه يا عباد الله انتبه يا عباد الله انتبهوا يا عباد الله ولا ليال سان لا سocona waxaan ku jirnaa bishii shahrullahi almuharram bishii muharram oo ah bisha ugu horeyso kalendarka islaamiga bilaha muslimka muharram ay ka bilaabanayaan bishani waa bil xurma leh ashhurul hurumna kamida oo rabbi quraanka ku tilmaamay tirsiga bilaha 12 bilood inay yihiin isla markaa afar xurma leh inay kamid yihiin afartaasi waxa kamida bishan muharram labana horaan u soo marnay oo waa dilqicda iyo dilxijja bilaha xajka kamid aha رجب ورجب مضر أهنا أفر أي كتهي إذا أفرت بلاد حرمة له بالكمدة وبشن المحرم إهدا أن كجرنو بشني وبلها صوم كودات كالله فضل بديي نبي عليه الصلاة والسلام حديثك أبي هريرة أوريني أفضل الصيام بعد رمضان وصيام شهر الله المحرم مركا رمضان لقصه تو بشا أقول فضل بدن إلا صومه وبشن محرمة إهدا أن كجرنو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مدينة يوصل قلي وحو أرك يهودي أو سوميسو مالنت طباناتك عاشوراء بشن طبعا كذا محرم مركز سويدي وحل ويري ومال نبي الله موسى عليه السلام وقال له بدباديي ساسي أسوميا نبي وحكو جواب صلوات ربي وسلامه عليه إنه يري نحن أحق بموسى منكم إنك يا إذن كمضا إنك يا إذن كحقنا نبي الله موسى محي الأنبياء إلهي وإسكو الدين بأهين إيجا حكت إسكوها إيجا أيا ومحي قرابة إيه وهل إيه ومحي وحولبا إيه حكت إسكوها إذن أنك أغا حقني مبضا سيدا نبي الله إبراهيم بأن أمضها أغا حقنه ما كان إبراهيم يهودي فالمسلما وما كان من المشركين سيدا سمرك أقرر إن النبي موسى إنك كحقنه أيوه حو أمري ذاتك إلا صومه صومك عاشوراء بريجي هرا فرض واجب وهنجري انت انا لا شرعيين رمضان انت انا جدينين ولا واجبين كدب ايو السنه اسكو بتلي ولذلك الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وحي ورينيسا maalintii caashuuraa subaxeedii ayuu nabiga u soo cidiray tuulooyinkii iyo meelihii ay degayeen reer ansaar markaasuu amray qofkii waa baristay isaga oo aan soonayna inta ka dhiman maalinkiisa ha haysto oo ha soomo oo afkiisa ha qabsado yani soon ha iclaansado qofkii soonaana soonkiisa ha sii wato وهكذا waxay tilmaamaysaa dadka waan soomi jirnay inagu ilmaheena iyo ubadkeenuna waa ku tababari jirnay soonkaasi ayaan bari jirnay isla markaa waxaan u sameyn jirnay ciyaar ama alaabay waxay ku ciyaaraan oo suuf laga hagaajiyay waa waxaan hadda abitaydo kale ama maxaa la yiraahdaa bombalayaasha ilmaha ay haystaan waxaan lagu ciyaarsiiyay wax noocaas oo kale u dhigma oo suuf laga hagaajiyay ayaan u hagaajin jirnay
waan ku mashquulin jirnay mar alla markii ay ooyaanba waan u dhiibi jirnay ilaa waqtigii laga afurayo ay ka gaaraan idan maalinka waa maalinta qiimaha badan waa maalintii nabiyullaahi muusa ilaahay u badbaadiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in uu alle ka rajaynayo sana tagtay dembigeeda in lagu dhaafayo soonka la soomo maalinkaasi tobanaadka bishan ee muxaram انتبه يا عباد الله انتبه يا عباد الله انتبهوا يا عباد الله